Allah u naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday tababarihii hore ee kooxaha kubadda cagta ee Muqdisho City Club iyo kooxda kubadda cagta ee Horseed Cumar Caruus kaasoo muddooyinkii la soo dhaafay la sheegay inuu ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho. Geerida marxuumka waxaa warbaahintu u xaqiijiyay xubno ehelkiisa ah waxaana maanta lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada Muqdisho. Cumar Caruus ayaa hore tababaro ugu soo noqday kooxaha ay ka mid tahay kooxda kubadda cagta ee Horseed iyo kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club ex-Banaadir Sports Club oo waayo badan ku soo qaatay naadigaasi. Aaska magaalada Muqdisho maanta loogu sameeyay tababarihii hore ee Muqdisho City Club Cumar Maxamed Naasir Caruus waxaa ka soo qayb galay bahda isboortiga qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnaha ehelkiisa ah iyagoona ka tacsiyay geeridii naxdinta leedahay ku timid. Allah u naxariistay tababarihii hore kooxaha kubadda cagta ee Muqdisho City Club iyo kooxda kubadda cagta ee Horseed FC waxayna sidoo kale goobta ka cabireen dareenkooda iyo waxyaabaha sida gaarka loogu yaqaanay laguna xasuusanayo tababarihii hore kooxaha kubadda cagta ee Muqdisho City Club iyo kooxda kubadda cagta ee Horseed. Cumar Maxamed Naasir Caruus tababarihii hore kooxda kubadda cagta ee Banaadir Sports Club ama MCC ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa macallimiintii waqti quruxda badan ku soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Banaadir Sports Club waxaana sidoo kale isagu naadiga Banaadir Sports Club uu suurtageliyay inay ku guuleysato koobka horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo aan biidsin oo aan halkaan laga adkaanin. Dhammaan taageerayaasha maamulka iyo macallimiinta naadiga Muqdisho City Club ayaa waxay tacsi tiiraanyada u dirayaan geeridii ku timid macallinkii hore ee naadigaasi Cumar Maxamed Naasir Caruus oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.